wasiirka hore wasaaradda qorsheynta Soomaaliland Maxamed Aadan Ibraahim Qabyatiro oo qayb ka mid ah warbaahinta kulaha daayay magaal ayaa ka hadlay shirka qaar ka mid ah beelaha Soomaaliland uga socda deegaanka Gacan Libaax shirkan beelaha garxajis uga socda buurta Gacan Libaax runtii beeshaasi waa beel ballaaran oo ka mid ah Soomaaliland muddana waa tii shirar la qabsanayay oo sida ummadaha kale ama reeraha kale ay u qabsanayeen waxaad ogeydeen shirkii afgarad ee bulugwadle waxaad ogeydeen kii daniya duco ee buurta waxaad ogeydeen kii hoodaale waxaad ogeydeen kii garadag marka kolley shirarkaasun buu la mid yahay shirarkii ka horreeyey marka had iyo jeer marka waqti kala guur yimaado waxa laga yaabaa reero inay tashadaan ama ay isu baxaan beeshan beelaynu runtii waa beel ballaaran oo inta Soomaaliland 14 gobol ee Soomaaliland ilaa 10 ka mid ah 11 ka mid ah aan idhaahdaba ayay degaan xisbiyada qaranku waa 3 xisbo qaran bay leeyahay laba ka mid ah hoggaankeeda hayaan oo ay hoggaamiyaan runtii waa beel deegaan ballaaran ku fadhida u malayn mayno in uga baqan qabna Soomaaliland uga baqan mayno waxaan filayaa waa kii madaxweynuhu yidhi dawladdan waa dawladdii huunada buu yidhi berigii dhaweyto madaxweynuhu marka shirkan garxajisna wuxuu iba fur u yahay dawladda hawdada ee mustaqbalka ayuu iba furiyey saas baan filayaa kolley dhowaanna wuu ka soo bixi doonaa go'aanada waanaynu ka filaynaa wax wanaagsanna waynu ka filaynaa insha allah biidni illaah kolley aan u odhan maayo waxaa jirtay odhan maayo waxaasaa ka soo baxaya laakiin positive-kun baynu ka eegaynaa berdhexdaasa waxaa riwaayad baa jiri jirtay berigii hore boon xirsi iyo baa matalayay meecaad allah u naxariista labadaba marka meecaad miigani oo gabadh halaha saawaya ayaa boon xirsi ay soo agtaaga suwarda naga tag waanu gabadh aan kaalaha saawna waanu la sheekaysanaynaa masuul war iska wada waan garanaya waxa meesha ka soo waxa wadaanba waan garanaya suwar garan maysideen ornaga tag masuul waan garanaya waxa ku garanaya horta xabiib ugu horeysay xabiib baad oranaysa xayaatina way ku xigtaa buu xamxam hoosana way jirtaa anu oran maayo afar qodob intaas ka soo baxaya ma oranayo shirka beesha ballaaran ee ku shirisa Gacan Libaax laakiin waxaan filaynaa wax wanaagsan baa ka soo bixi doona insha Allah saluug bay laga muujinayaa siyaasadda xukuumaddeena aanu ka tirsanahay iyo surmaseegta fara badan oo la sheegayo marka in marmarka qaar la iswaraysto oo hoos loo eego wax badan laga wada tashado way wanaagsan tahay Luqmaan Maxamed Farax Bulsho TV Hargeysa